maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka oo muddooyinkii dambe waday dhageysiga kiiska dilkii loo geystay gudoomiyihii degmada Hodan ayaa maanta soo gabagabeysay kiiskaasi waxaana xukuno kala duwan ay ku riday ragay ku lug lahaa kiiskaasi oo la sheegay inuu ku dhacay kama yacni aan bareer ahayn waxaana dadkii xukunka lagu riday kamid ahaa taliyihii saldhiga degmada Howlwadaaga Anshaale Booliis Shucayb Cabdi Maxamed kaasi oo lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah 2 dable booliis Bashiir Axmed 5 sano oo xabsi ciidan ah kaasi oo hadda baxsad ah 3 Jamaal Isaaq Cali 2 sano oo xabsi ciidan ah 4 Diblaabe Ibraahim Yuusuf 2 sano oo xabsi ciidan ah 5 Faarax Sabriye Afrax 2 sano oo xabsi ciidan ah iyo 6 Kulmiye Kaariye Cali oo isagana lagu xukumay 2 sano oo xabsi ciidan ah marka laga tago maxkamadaasi kala duwan ee lagu riday ciidankani ku eedeysan dilkii marxuum Nagajoon maxkamadda sidoo kale waxa ay fartay in dhamaantoodba ay bixiyaan magwadareed taasi oo ay qaadan doonaan ehelkii uu ka geeriyooday marxuumka Abuukar Ali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City magaalada Jowhar